kulan wacan oo wanaagsan beelweynta shariifeed xasan iyo xuseen ee ku jira guruubyada kala duwan ee beesha ku soo dhawaada barnaamij gaar ah oo aan ku eegi doono hadduu Allah awood la ogolaado kulamo gaar ah oo ay yeesheen mas'uuliyiinta waxgaradka iyo dhalinyarada beesha anigoona ku eegi doona barnaamijkan gaarka ah waxyaabihii ay daarnaayeen iyo sidoo kale waxyaabihii lagaga wada hadlay kulamadaasi aan ku horeeyo kulan ay wada yeesheen gudoomiye ku-xigeenka midowga mataanaha Ashraaf Xasan iyo Xuseen Cabdiraqiib Shariif Ibraahim iyo qaar ka mid ah dhalinyarada reerka kulankaasi oo ka dhacay magaalada Baydhabo iyo waxa uu daaranaa kulankaasi shir lagaga wadaarinsanayay horumarinta dhalinyarada beesha Ashraaf Xasan iyo Xuseen ayaa wada yeeshay gudoomiye ku-xigeenka midowga mataanaha Ashraaf Xasan iyo Xuseen Shariif Cabdiraqiib Shariif Ibraahim iyo dhalinyarada beesha ee ku dhaqan magaalada Baydhabo ee maamul goboleedka Koonfur Galbeed Soomaaliya shirkaasi ayaa ahaa mid aad muhiim u ahaa oo loogu wadaarinsanayay sidii dhalinyarada beeshu ay u noqon lahaayeen kuwa isku duuban oo midaysan waxaana ka mid ahaa qodobadii shirkaasi lagaga wada hadlay intii uu socday sidii ay iskugu xidhnaan lahaayeen isla markaasina iskaga warahan lahaayeen dhalinyarada beesha iyo sidii ay ugu wada shaqayn lahaayeen horumarinta reerka gabagabadii waxaa la isku afgartay in la furo xafiis ay ku midaysan yihiin dhalinyarada beesha xafiiskaas ayaana ka caawin doona dhalinyarada reerka sidii ay iskaga warahan lahaayeen isla markaasina ugu wada kulmi lahaayeen si fudud sidoo kalena xafiiskaasi waxa uu ka caawin doonaa in ay dhalinyaradu sameeyaan isdhexgal dhanka kale waxa sidoo kale habeenkii xalay ahaa dhacay kulan gaar ah oo looga hadlayay masiirka reerka sidii loogu wada shaqayn lahaa horumarinta arinta beelweynta Ashraafeed ee Xasan iyo Xuseen iyo sidii loo taageeri lahaa dadaalada kala duwan ee ay wadaan dhalinyarada beesha waxaana kulankaasi arimaha reerka loogu wada arinsanayay wada qaatay madaxweynihii hore ee Koonfur Galbeed Soomaaliya Shariif Xasan Sheekh Aadan Shariif Sakiin Ustaad Liibaan Shariif Jamaaludiin Nabadoon Shariif Xuseen Matkuus Maxamed Shariif Nuur Tukade Isxaaq Shariif Huud Shariif Irshaad ugu dambeyntii kulankaasi ayaa isagana ku soo gabagaboobay farxad iyo is-afgarad ay gaareen mas'uuliyiintaasi ehelkaygu waxaan intaasi ku soo afmeerayaa barnaamijkii gaarka ahaa ee aan kaga hadlayay kulamadii gaarka ahaa ee ay yeesheen mas'uuliyiinta iyo dhalinyarada reerka iyo waxyaabihii lagaga wada hadlay kulamadaasi waxaa gacan weyn ka geystay soo bixitaanka barnaamijkan gaarka ah Ustaad Liibaan Shariif Jamaaludiin iyo Dr. Abdiraxmaan Shariif waxaana idila socodsiinayay isla markaana idin soo jeedinayay barnaamijkan gaarka ah anigoo ah wiilkiini miskiinka yaraa intaan barnaamijkan mid lamid ah aan dib habada ugu kulmi doono hadduu eebooynaha ee awoodda gacantiisa ay ku jirto ogolaado waxaan idinku dhaafayaa reer tolkaygi بلنتين ورمر اسكو دوبني يهيك سفوك